شباب يوحى صهر داعش ينت الله أنت سؤال بردي ويديننا بالله عليكم مدين ترسين أنت الدشان ترى عن كريم متقانا أنت الروح الدشان واحد كل دشان مقارنة إنسان محبة مبادل با ما مناينين الدنتان حديث بيدري شذانا وحي رادان ثم لا يبعثون على نياتهم عائشة وحي تري النبي وحي شيء صلوات الله والسلام عليه ومد soo socoto meel banaan oo maka agteeda lagu rogi doono oo suuqlaydoodii iyo kuwii soo duulay iyo kuwii inkaarta qabayba waa la isla rogi doonaa kaasa waxay tiri rasuul Allah oo kuwaas masaakiinta oo aan dagaalka ku jirin oo meesha lagu leeyay xalkooda noqonaya waa la rogayaa biir niyadoodana lagu soo saari doonaa shabaabku markay dadka laynayaan tarabta u laynayaan xadiiskaasi daliishadaan laakiin xadiiska wuxuu ka hadlayaa musiibo xagga rabbi ka soo dhacday xadiisku ka hadlimayo in dad bini aadan oo jira iyagu musiibo noqdaan oo marka intay dadka soo laayaan ee ilaahay u diraan yiraahdaan ilaahu intaas ku soo dilay adigu kala saara kii fiicnaa kii xumaan adigu ma fiican sida u dish xagaysa ka timid fiicnaanta ummadda lagu kharibayo lagu laynayo amnigeeda lagu baalkeenayo waxaad ku jirtaan oo sameeynaysan ummadda cadawgeeda u nugleynaysan بكل ما في الأمر وإنت haddaydan cadawga la shaqaysanaynin sida tan ummad looguma heeliyo kuwa la soo qalday aaminsan wuxuuma ummadda ka qaldan ee waxaan rabnaa inaan wax u hagaajino war qofka wuxuu hagaajinaysa hadaad disho maxaad hagaajisay billaah alayk yaad xogaajis aqligu inta ma garan waay alaysa minkum rajulun rashid wani wax kala garanayay kuma jira miya maskaxda xageebad la aadeen kuwa culimada sheeganaya ee culimo usuuga ee zuurka iyo buutaanka diinta uga been sheegayo ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka cabsada waxaad ilmaha ku qaldaysaan ka fiirsada waxiidan ubadkiina u dirteen ilmo Soomaaliyeed ha u dirina ilmaha aad baad iyo zakada u qaadanaysaan waxa sujihaadka nabiga ma aha sallallahu wasallam alayhi su'aal kale idin weydiinayna intaad agoontaysaan midin tirsan tahay oo dayac ku nool oo aabihi masruuf hayay aad waxa weeye qarax ku disheen ama madax jabis ku disheen ama maxaa la yiraahdaa ii sheeg aad waxa weeye dhibaato kale ku disheen dhaawac ku disheen midin tirsan yihiin intaad hooyo disheen oo ilmaheeda rajo ka dhigteen midin tirsan yihiin intaad labada isugu darsadeen midin tirsan yihiin inta aad oday iyo hooyo waayeel aad gablan ka dhigteen midin tirsan yihiin inta u waalatay taraawmadii ay ka qaadeen qaraxyada iyo dilka iyo gubitaanka midin tirsan yihiin billaah alaykum سؤال كان maxaa guulood ka gaadheen maxaad xaqiijiseen waxa ummadda ay ku naaloo karto ka dhaxaya maalinka maanta oo aynu ku wada faani karno oo soo noqday caayidka waa maxay aan ku wada faano idinka mid noqonee noo sheegay guusha mise waxaad doonaysaan guul darro iyo geeri kaliya ummadda dhan ka wada shaqayso tan maxaa ku weliya kuwa idinka dhexdiina iska disheen maxaad ku disheen markay idin la jireen maxay ahaayeen markay ay dhibanayeen maxay ahaayeen maxaad cuskateen looma shaqayn karo wax dil kaliya in loo shaqeeyo aba wax loo dilo just dil baan wax u dilayaa waxaan dilayaa wiil aan qaan gaarin qori baan u dhibayaa maxkamadii waa isaga ma tukada hadduu doono qaadku cunaa ciyaar suuqnimo kale ku jira xoogaa baa loo dhibayaa waxa la leeyahay dadka ummadda indhaha waa soo la baa la leeyahay waxa xageebay diin ilaahay kaga taala waxaasoo haddii ay wuxuuna yihiin waxaan islaam ahaynba waa lagu sheegi karaa maafiyanimo burcadnimo tuugannimo fulaynimo bahalnimo wax kastoo xun ku sheeg waxaan islaam ahayn waa lagu sheegi karaa su'aal kale idin weydiinaya mis weydiiseen fidnadan intaydan bilaabin inta ciidan oo shisheeye oo wadanka joogtay iyo inta fidnada bilowdeen inta ciidan oo shisheeye oo timid oo ku timid idinka fadligiina iyo shaqadiina xun mis weydiisan inta qaxday mis weydiisan intaas inta ka gaalowday mis weydiisan inta ka inxiraaftay mis weydiisan inta badaha ku dhamaatay iyo banaanada iyo waxa la yiraahdaa saxarayaasha carar iyagoo idinka jira inta reera kala loo mis weydiisan idinka daraadin masawirkan laga qaatay wadanka ee foosho xun ee aad ku haysaan mis weydiisan masawirka midna anfacaya haddaad siyaasad doonaysaan walaalayaal meesha loo marahay siyaasaddu taas maaha waddankeena siyaasad xun oo idinka noociina aad ka wargeli kartaan waa leeyahay laakiin dariiqad martaan dariiq lagu gaari lahaa ma aha laakiin waa la helayaa mid kuwa capacity-geena oo kala ah ay ku jiraan gala dariiqeeda soo mara qabaa'ilkiina soo dhex mara ilaa qoriga mawgi
fikir qaldan waa qabi kartaan ummadda isa sixi doonta kuwa kale qaldan waa jiraan laakiin waa ku dilayaa hadii fir'auniyya bi'ayniha garanaysa fir'aun bamxulaha وإذن دي لي قرطة إنك قوينة يا مربع لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو سلمنكم أجمعين آمنتم له قبل أن أذن لكم ما واحد موسى عليه إذن يدمن هذه فرعونية إسلام ما رضي حردين كباقينا إلهنا كباقدان ومداس هذا إنده دي الردين إنده اللي دي كرديه إذن كما هارين دي لي الدقال ayadoo sida aad u geysateen baad dadkan ay yihiin dad sabir badan oo ay diyaar u yihiin inay hore u sii socdaan oo ay ka gudbaan waxaad badeen oo ay diyaar u yihiin inta ilmahooda oo la qalday oo idinka hadda toobad keentaan oo soo laabataan inay idin aqbalaano meeshaad ummadda ka geli kartaan aad ka buuxisaan laakiin sida hadda aad ku jirtaan sidin bixinaysa maaha adduuniya aakhiro waxa doonaysaan si aad ku gaaraysaanna maaha berrina waxa la arki doonaa shabaab iyo gaalays wata oo ka tarjumaya wadanka gabi ahaantiisa in la qaato ummadda waxa la gudbaan marka ina waxa loo dhaafin ummadda laga qabto Sheekh Abdi Naasir dilkiisa astaan wuxuu yahay inaan cid cafisa aanay jirin ma tukata salaada ma taqaana wax ma qori kartaa ummadda intaas laga dagaalamaya qandaraaskana cid kale laga soo qaatay saadarteed hadii lagu iman doono hadda dagaalka sii gal cidii gaarab iyo gaashaan kugu noqon karta sii kaasho maamuladeena yaryarka aan boorka ka jafano nimanka axad ha loo yeero cadow ka daran ummadda Soomaaliyeed ma dhex joogo